dalka ayaa wajahaya xaalad siyaasadeed oo cakiran oo dhaxaysa madaxda ugu sarreysa ee dawladda gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo waqtigu ka dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Maxamed Xuseen Roble xooga khilaafka ayaa waxa uu yimid kadib markii la waayay Ikraan Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya bishii Juun ee sanadkan ayaa la sheegay in laga afduubtay guri ay deganeed oo u dhow xarunta sida weyn loo ilaaliyo ee Habar Qadiijo oo ay degan yihiin ciidamada NISA waxaana warkeeda la baadi goobayay muddo ka badan 2 bilood balse bishii aynu soo dhaafnay Agoosto ayay NISA waxa ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in Ikraan ay u gacan gashay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay dileen warbixinta NISA oo aan markii ay soo saartayba lagu qancin ayaa waxa sii xumeeyay kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay iska fogeen isla markaana ay ku tilmaameen been abuur oo kalena ay ula yaaban yihiin sida shacabka Soomaaliyeed wixii markaas ka dambeeyay xaaladda ayaa sii cakirantay oo kiiskaasi waxa uu abuuray kala aragti duwanaansho xoog leh oo soo kala dhex gashay madaxda dawladda siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaana ay sababtay in si weyn markaasi dadku ugu tuhmaan in NISA ay ka dambayso afduubka iyo dilka loo geystay Ikraan Tahliil Faarax hadal hayn badan oo la isla dhexmaray kadib ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay kiiska Ikraan sida markaasi ay u taabatay qulubta shacabka Soomaaliyeed isagoona ballan qaaday in ay cadaalad heli doonaan qoyska Ikraan Tahliil oo gabadhoodu ay maqan tahay ra'iisul wasaare Roble oo sidoo kale sheegay in aan lagu qanci karin warbixinta NISA ay soo gudbisay ayaa agaasimihii xilligaas ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ku amray in uu 48 saacadood gudahood ku soo gudbiyo warbixin dhameystiran oo la xiriirta kiiska Ikraan Tahliil Faarax saacadihii la qabtay Fahad ayaa ku soo gudbiyay warqad jawaab ah oo uu ra'iisul wasaaraha uga dalbaday in la iskugu yeero golaha amniga qaranka si wada jir ahna loogu baaro kiiska Ikraan Tahliil Faarax balse ra'iisul wasaare Roble oo aan ku qancin jawaabta uga timid dhanka Fahad Yaasiin ayaa gaaray go'aan xasaasi ah oo siyaabo kala duwan uga falceliyeen siyaasiyiinta waxgaradka iyo shacabka Soomaaliyeed kaasoo ahaa in uu xilkii ka qaaday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ahaa agaasimihii NISA magacaabayna agaasimo cusub khilaafka ugu adag ayaana waxa uu dhashay kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu gabi ahaanba ka soo horjeestay xilka qaadista Fahad waxa uuna sidoo kale sharci darro ku tilmaamay go'aanka uu ra'iisul wasaaruhu xilka uga qaaday agaasimihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay taliye cusub kaasoo ahaa taliyihii nabad sugidda gobolka Banaadir Yaasiin Faray kadib markii uu madaxweynuhu sheegay inuu istiqaalo soo gudbiyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir isla markaana taliyaha cusub ee NISA uu yahay Yaasiin Faray wixii markaas ka dambeeyay waxa xafiisyada Farmaajo iyo Roble ka soo kala baxayay warqado kala duwan oo iska soo horjeeda ra'iisul wasaaraha ayaana talaab kala qaaday waxaana uu xilkii ka qaaday wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale isagoona magacaabay mid kamid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda hanaanka siyaasadeed ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo ah Cabdulaahi Maxamed Nuur mar kale ayuuna madaxweynuhu ka hor yimid waxa uuna sheegay in uusan sharciyad u haysan ra'iisul wasaaruhu xilka qaadista wasiirkii amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale maalmihii ugu dambeeyay waxa socday dadaallo la iskugu soo dhaweynayo labada dhinac balse kulamadii ay qaateen ayaa fashil ku soo dhamaaday kadib markii la isku afgaran waayay qaar kamid ah qodobada khilaafka dhaliyay gaar ahaanna waxa lagu kala tagay arrinta la xiriirta baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ra'iisul wasaaruhu u gudbiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaalinta qaranka iyo sidoo kale magacaabistii Bashiir Goobe lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafkan balse shacabka Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujinaya in uu saameyn xoogan ku yeesho hanaanka doorashooyinka dalka oo waqtigoodii dhaafay